daawadayaal qaybtan waa qaybtii labaad wararkii wacala dhinaca dunaasiyada caalamka oo dhan waa 16 bishii Febraayo waa 2021 daawadashana qiimaha badan ee militarigii kaknaa ee iyaguna awoodda ku habsaday dalkaasi la yiraahdo Myanmar ama Burma sababta taqaanid ayaa waxa ay soo saareen digniino iyo hanjabaado ay sheegeen in dadka militariga iska hor yimaada ama ku banaan baxa 20 sanadood oo xariga qoorta loo soo doono sidoo kalena laga qaadi doono kumanaan kun oo dollar oo lacagta dollarka ah oo ganax noqon doonta waxa ay sheegeen in qof kasto nacayb toosa ama xushmad darre kala hor yimaado militariga uu taasi wajihi doono kooxda militariga waxa ay sidoo kale sheegeen inay sii wadi doonaan talaabooyinka adag waxaana ay ka digeen in dalka Burma uusan haba yaraatee uusan noqon doonin dal ay gacanta ku dhigaan ay yiraahdeen kooxo dad xun dhanka kalena haweeneydii la qabray Aung San Suu Kyi ayaa la sheegay in iyadana maxkamad la soo taagi doono taasoo maqaliyo muuqaal lagu qaban doono magaalada caasimadda Naypyidaw maalinta Arbacada sida ay sheegayaan khubarad wararku waxay sheegayaan in haweeneydaasi marka maxkamadda ay ka soo dhex muuqato lagu soo oogi doono dambiyo waaweyn oo ay gashay dunida ayaa wali dalbanaysa in la soo daayo dadkaasi dadka mudaharaadaya ayaa ilaa hadda wali sii xoogeysanaya internetka ayaa marna la jaraya marna la soo deynaya taasoo dadka marba qayb ka qaadanaysa South Africa madaxweynihii Jacob Zuma loo jiray dalkaasi xukumi jiray waxa uu diiday inuu hor yimaado guddi xirbeegti ah kuwaasoo doonayay inay dhageystaan dacwooyin ka dhana oo ku aadan musuqmaasuq baahsan oo ay wada galeen isaga iyo qoyska loo yaqaan Gupta sida wararku sheegayaan uu diiday inuu yimaado halkaasi kadib markii uu sheegay inaysan sharci ahayn arinta ayaa ahayd in 15 bishii shalay ay bilaabato ilaa 19 bishii Febraayo ay sii socoto dhageysiga guddigaas khubarada ay loo saaray mid kamid ah dadka u hadlay Mr. Zuma ayaa sheegay inuu wax dambiye gelin si daradeedna ay uusan ku khasbanay in madaxweynaha hore uu yimaado maxkamad noocaas oo kale Ibrahim waxa ay ku tooqday in ay si xoogan u horumarin doonto hubkeeda isla markaana aysan yeeli doonin basaasid iyo garaangalkii ay wadeen hay'adaha ama naydayntii waxa loo yaqaano hay'adda IAEA waxay sheegeen in aysan taa sameyn doonin ilaa iyo inta ay yiraahdeen ay kooxahaasi ay u muuqdaan kuwo Iran lagu cadaadinayo gaar ahaan dalka Mareykanka oo cunaqatay qaadidii afhayaanka wasaaradda arrimaha dibadda Saciid Qadib Sahdi ayaa sheegay madaxweyne Xasan Ruuxaani dawladdiisu ay meel marinayso sharciga baarlamaanka goorsii horeysay uu meel mariyay ka soo habraac ahaa oo ku aadana in awoodda laga qaado kooxda IAEA haddii Mareykanku uusan cunaqataynta qaadin marka la gaaro 21 bishii Febraayo oo muddo hadeerto 5 maalmood ay ka harsan tahay waxay ku celiyeen inay taasi ay dhici doonto maalmaha soo socda haddii ay Mareykanku ka gabagabsan waayaan nasiib darrada waxa weeye ayuu yiri warka qoraalka uu soo saaray madaxweynaha Mareykanka iyo maamulkiisa cusub wali waxay sii wadaan siyaasadii nacaybka ku dhisneed ee lagu cadaadinayay Iran taasoo ciqaab ahayd dambi ah oo laga galiyay shacabka dalkaasi bariyo ugu dambeeyay ayaa dunida oo dhan aflabadii ka yeedhay kadib markii la ogaaday in Iran hubkeeda nuclearka ay ku sii socoto iyadoo dhaqanka Iran uu u muuqdo mid aan istaagaynin kolkii xog dheeraad lagu ogaaday inay dulmo meel marisay mid kamid ah maadooyinka sahla in hubka nuclearka ay ku shubto sunhaynta dadka arrimaha qaadariga ayaa sidoo kale sheegaya in Iran ay u muuqato inay doonayso inay waqti dheeraysato waxaana la sheegay in Iran dhowr jeer lagu khasbay in ay u hoggaansato barnaamijka loo yaqaan ka hortagga hubka nuclearka ee non-proliferation treaty hase yeeshee Iran waxay sheegaysaa in aysan haba yaraatee ka gabagabsan doonin samaysashada awood xooggan ninkii maxkamadda loo magacaabay ICC markaasi dalka Britain ka soo jeeday ayaa isagana waxa ka soo baxaya warar kala duwan marka ay noqoto waxa uu ka sameeyay doona go'aanka maxkamaddu horaantii bishan ay ku gaadhay in la maxkamadeeyo dambiilayaashii dagaal ee dalkaasi Falastiin baabi'iyay International Criminal Court gabadha hadeerta hoggaanka ka sii degaysa ay ogolaatay in la soo qabto wargeyska Al-Watan ka soo baxa dalka Carabta ayaa waxa uu sheegay in uu ogaaday xogo dheeraad ah oo ku saabsan in olole durbaba ay ku qaadeen xubno reer Israa'iil kuwaas oo u dadaalay oo dalbanaya in la joojiyo mid kamid ah dadka qareenada oo Israa'iil oo leeyahay Nick Kaufman ayaa waxa uu sheegay in uu og yahay in Mr. Karim Khan uu aaminsan yahay in qodobo dhinaca sharciga oo khalada ee Fatou Bensouda ay samaysay hase yeeshee waxay wararku sheegayaan in laga yaabo ninkan oo isagu dhowr jeer ka hadlay in dambiyada dagaalka laga hortago in uu arintaasi ku dhiirido isla markaana uusan ogolaanin wararku sidoo kale waxay sheegayaan inay saameyn ku yeelan doonto dalka Britain oo ilaa hadeerto aan la garanaynin waxa ay ka yeeli doonaan oo salhaan ka soo jeedo ama uu aandhaha uu dhalashadiisa haysto ka soo jeedo wararku waxay sidoo kale sheegayaan in dhawaan wargeyska leeyahay The Times of Israel uu qeexay ama uu qoray in uu leeyahay Israa'iil inkastoo aysan ahayn ayuu yiri xubin ka tirsan ICC ama maxkamadda International Criminal Court haddana gadaashiisa ayay kala shaqeysay doorashadii lagu doortay
ninkaasi Karim iyadoo oo u aragtaa nin markaasi ka dabacsan haweenidii reer Afrika ka kaneed halkan nagala socotaan daawadayaal wararka oo calaadina cadnasiyada caalamka oo dhan madaxweynaha dalka Algeria Abdelmajid Tebboune waxa uu u diyaar garoobayaa in 18 bisha uu kala diro baarlamaanka dalkaasi isla markaana uu ku dhawaaqo in golaha sharci dejinta ee dalkaasi la doorasho xilligeeda laga soo hormarsiiyay ay galaan sida uu ku soo waramayo wargeyska afka dheer ee dalkaasi Algeria ka soo baxay Chirok wargeyska Chirok oo xoginayay saraakiisha sarsare ee xisbiga madaxweynaha ee loo yaqaan xisbiga Future Front Party ama xisbiga mustaqbalka ayaa waxaa la sheegay in ay u muuqdaan inuu go'aankan uu ku qancinayo kadib markii dad badan ay wali ka biyadisanayeen dadka xubnaha baarlamaanka ku jira inay yihiin xaliskii hore Abdulaziz Bouteflika wararku waxay sheegayaan in go'aankan cusub uu sidoo kale uu hormuud ka noqon doono madaxweynaha iyo waliba ururada kale heer qaran ee iyagana dhawaan ka soo dhaxbaxay doorashadii ugu dambeysay ee uu kamid yahay ururka National Building Movement ayaa waxa uu madax ka yahay ra'iisul wasaarihii hore dalkaasi Abdelkader Ben Grina ayaa waxay soo dhaweeyeen go'aanka madaxweynuhu ku kala dilayo baarlamaanka waxayna sheegeen in doorashada in la asteeyo ay muhiim u tahay in dalka dimuqraadiyadiisa la hagaajiyo daawadayaal wararka waxaa dhinaca cadnasiyada caalamka oo dhan qodobo war xooggan baa daawashada qiimaha soo socday haatan Catalonia gobolka Catalan ee xarunta gobol maamul goboleedka Goonigosadoonka Catalonia ayaa doorashadii halkaas ka dhacday dadku waxay u bateen inay u codayaan ama codadkii ugu badnaa waxay helay xisbiga Goonigosadka ah ee isagu doonaya in dalka Isbaaniya intiisa kale ay ka go'aan gobolka qaniga ah ee Catalonia xisbiga ayaa waxa uu helay kuraas ku filan oo ugu codeyn karo in baarlamaanka deegaankaasi ama gobolkaas maamul goboleedkaasi uu go'o taasoo muujinaysa ayaa lidhi in dadka ay aad ugu baahan yihiin ama u daneynayaan ama dadka reer Catalonia ay u janjeeraan dhinaca Goonigosadka wararku waxay sheegayaan in dad badan aysan soo bixin kadib markii xanuunka faafaha daran laakiin waxaa la sheegay in dadka mitidka ah ee iyagu Goonigosadoonka ay soo camreen taasoo kasabtay in 50.9 ay helaan codadka xisbiga halka ay dhaafeen markaasi halbeeg loo yaqaan 50% oo ka dhigan inay aqlabiyada ayagu qaateen tani waxay ka dhigan tahay leeyahay inay dhisi karaan dawlad Goonigosada hase yeeshee dawladda dalkaasi Madrid xarunteedu ee tahay Spain ayaa ganafka ku dhufatay arintaasi sanadkii 2017 ayaa u muuqatay in dawladda dalkaasi ay qaaday ololo ay ku gaagoon tirtay kooxo kacay iyadoo si xooga u kala dirtay maamulka halkaas ka jiray kolkay ku dhawaaqeen inay jamhuuriyadda kala goonayaan si kastaba ha noqotee arintan ayaa wali aysan ka samrin dadka reer Catalonia oo iyagu u arkay inay ku dulban yihiin maamulka Madrid halka nagala socotaan daawadayaal wararka oo calaadina cadnasiyada caalamka oo dhan qodobo warbixino kala duwan inoo socdo daawashana qiimaha badan ee haatan qodobka ugu dambeeya daawadayaal aad ku maqli doontaan wararkeena magaalada Astana waxaa dib uga furmay kulan ay isugu yimaadeen dadkii iyo dalalkii iyagu markii hore isugu yeeray inay yihiin damaan qaadadayaashii Astana oo dad reer Suuriya heshiisiinayay oo ahaa dalalka Ruushka Turkiga iyo Iran waxayna ka wada hadlayaan markii 15aad shirkii burburay ee ku soo burburay magaalada Geneva ee dalka Switzerland in halkan wax laga qabto si wararku sheegayaan wararka ugu dambeeyay waxay sheegayaan in dalalku ay riixayaan isku daygii ugu dambeeyay ee lagu badbaadinayo wada hadalada mucaaradka iyo dawladda ayaa isku afgar waayay dhistaanka dastuur ninka qaramada midoobay ergeyga u ah ee dalkaasi ka howlgala Mr Persena ayaa sheegay inuu ka niyad jabay isla markaana uu doonayo in wax weyn ay dunida oo dhan ay ka qabato gaar ahaan dalalka saameynta ku leh dalka Suuriya ayaa noqday dal baaba'ay kadib markii 2011 mudaharaad ka dhaceen markii dambe ayaa dad mudaharaadaya dawladda dalkaasi weerar ku qaaday kaasoo markii dambe dhiig meyd isku bedelay dad badan ay halkaasi ku dhinteen ilaa hadeertana dalku wuxuu noqday dal baaba'ay daawadayaal qayb saddexaad qatay